الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد. ما أنت تاريخ وتهي قال طبعا بشمي لو يكون الربيع طبعا مقالة نيروبي ما أنت وحنا سقولنا من حوالي إن هلك كسوة دول كلمات وكسابسن الرماها سياسة الصومالية هي مراحش ما أنت مريسه iyo geedi socodka nabadda isbedelka siyaasadda ee loo baahan yahay in la sameeyo intaan la gaarin bisha August 20 xaqiiqdu waxay tahay ummadda Soomaaliyeed ma aha midda burburka iyada sababtoo ah waxa sabab u ah waa hoggaanadii soo maray weeye hoggaanadaas oo ahaa kuwo aan daacad u ahayn dadkooda dalkooda iyo diinkoodaba waxa soo dhawaaday waqtigii la soo afjari lahaa dawladda maanta jirta oo madaxda u yahay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Prime Ministerna uu yahay عبد الولي محمد قاس سيدات كور قبطان دولدة انت اللي صور لسي ولغو صور لسي جبوتي لابد يكون يساقالكي يسقبقبس بدان اي وقت غير كلمس وقانك وهذا يشير اسمان داف وخدعه isku horimaad dhexdooda ah iyadoo qof waliba uu doonayo sadbursi ama dantiisa inuu ka arko waxa markaa la doonayo in la qabto waxaad ka warqabtaan bishii May 2011 sanadkii hore markii la islahaa waxa dhamaanaya waqtigii dawladda maanta jirta isqabqabsi iyo riwaayad ay ummadda u dhigayeen ayay ku kasbadeen inay helaan muddo sanada in loogu daro waqtigoodii sanadkaasi intii ka horeysay dhimashada dadku waa badanayeen dhaawaca iyo qaxuna tira marahay sidaa awgeed waad ogtihiin in hoggaamiyaasha Soomaaliya in muddaaba markay isqabtaan in lagu xalliyo mashaakilkooda dalalka dariska nala waxay door bidaan in lagu dhexdhexaadiyo dalalka sheeyaha markay isugu tagaan hodheelada ma moodid ragga sharayto telefishinada iyo raadiyaasha ka murmayay oo is-awsanay ma moodid isdhunkashadooda iyo saraantooda iyo farxa markaa u dhaxeeya halka waxa ka muuqata inaysan dan ka lahayn dhiiga badan oo daadanaya qaxa badan oo ummaddu ay qaxayso guryahooda ka qaxayaan inaysan ka danqaneen magaxumada iyo dhibaatada soo gaaraysa maalin waliba shacabka Soomaaliyeed nasiib darro isqabqabsiga ugu dambeeyay oo maalmaha kan la hadal hayay waxay ku kulmayaan hoggaamiyaasha iyaga ah magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sida la filayo 22 bisha May 2012 haddaba ummadda Soomaaliyeed iyo dadweynuhuba waxa uu ka daaray riwaayadaas halka nooca oo soo noqonaysa oo ah in la isqabqabsado
howlihii loo igmaday inay qaban kari waayaan marka ay adduunyada ka codsadaan in muddo loogu daro. waxaan rajeynayaa waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed aysan raalli ka noqon doonin in maalin loogu daro rejiimka maanta jooga. ku darsigooda wuxuu keenayaa waxa uu kulmayaan hogaamiyaasha iyaga ah magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya sida la filayo 21-ka bisha May 2012. haddaba ummadda Soomaaliyeed iyo dadweynuhuba waxa uu ka daaray riwaayadaas halka nooca oo soo noqonaysa oo ah in la isqabqabsado howlihii loo igmaday inay qaban kari waayaan marka ay adduunyada ka codsadaan in muddo loogu daro. waxaan rajeynayaa waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed aysan raalli ka noqon doonin in maalin loogu daro rejiimka maanta jooga. ku darsigooda wuxuu keenayaa waxa weeye in ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay ku jirtay inay ku sii jiraan oo ay ka sii xumaato. waxaad ka warqabtaan dhawaan oday dhaqameedyo badan inay yimaadeen magaalada caasimadda Muqdisho iyagoo doonaya inay xuraan ilaa 825 qofood oo Soomaaliya si loo ansixiyo dastuurka maanta la wado oo qabyo qoraalka ah. waad ogtihiin in hadallo badan ay ka yimaadeen qaabka loo soo xulay wada dhaqameedyada faragelintu ay ku hayso dawladdu oo ay doonayaan inay dadka qaarkood oo isimada ah ama wada dhaqameedyada ah inay noqdaan kuwa xaggooda u janjeera si ay uga faa'iideystaan rag iyagu ay doonayaan inay ku soo baxaan xubnaha baarlamaanka cusub si iyaga markaa loo doorto. waa nasiib darro nin isagu doonaya in la doorto inuu awood u leeyahay kuwii dooran lahaa inuu isagu doorto. arrintaa iyada ah waxaanu khibrad u leenahay dawladdii lagu soo dhisay Embakasi iyo sida qaabka loo soo dhisay. dhibaatada ay Soomaalidu ay dhaxashana waanu wada ognahay. waxaan soo jeedinayaa marka waxa weeye ragga isku magacaabay inay iyagu saxiixayaal yihiin inay ka waantoomaan waxaan ummadda Soomaaliyeed dan u ahayn. ummadda Soomaaliyeed waa ka bisishahay sidii hore. dhibaatada loo geystay ayaana ku kaliftay inay yeeshaan wacyi iyo garasho iyo bisayl ay ku kala gartaan xaqa iyo baatilka. sida awgeed ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay u istaagaan ku baraarugaan sidii masiirkooda ay gacanta ugu dhigi lahaayeen. dabinno badan ayaa ummadda Soomaaliyeed kusoo dhacday 60 sano ugu dambeeyay oo hor istaagay ummadda Soomaaliyeed inay noqdaan ummad nabad ku noolaata, ummad masiirkeeda iyadu ka talisa.
ummad horumar gaarta sida ummadaha kale inta oo dhan waxaa sabab u ahaa hogaamiyaal aan u naxariisan ummadda Soomaaliyeed rabbigoodna aan ka baqayn mooday mansab beena in magac lagu helo xoolo aysan iyagu kasban iyagu aysan lahaynna inay aakhiradooda ku seegaan arrimaha ka jira xagga dastuurka oo qabi qoraalka ah waxaan ogsoonahay waxa weeye qaabka loo soo diyaariyay in aysan kasban kalsoonida ummadda Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay qabi qoraalku in ummadoo dhan ay ka qayb gasho qaabka loo soo diyaarinayo madaxda qaarkood baa waxa ay dhowr goor ku hadaaqeen ama sheegeen in dastuur la'aan aan qaran la noqon karin waraysi hore aan u bixiyay baan ku cadeeyay hadalka isaga inuu aflagaada ku yahay garashada shacabka ummadda Soomaaliyeed sideedaba constitution waxa weeye xeer ummad ay samaysatay weeye maaha waxyi ilaahay uu soo dejiyay constitutionka Mareykanka oo loo qiyaasay ilaa 200 sano iyo wax ka badan sida ogsoontihiin maalin walba waxa lagu sameeyaa improvement ama amendment ama magarata muxuu ahaa isbedelo badan baa ku dhaca dastuur sidiisa ma aha shay muqaddas ah oo aan la bedeli karin maaha waxaan oran lahaa waxa weeye dastuurka hadda qabi qoraalka ah in la turxaan bixiyo ayuu u baahan yahay inuu noqdo mid ownershipkeeda ama lahaanshaheeda uu yahay mid Soomaaliyeed uusan ahayn midna loo yeeriyo waxaan oranayaa marka waxa weeye muddo 3 bilood ah ma filayo qabi qoraalka inuu ku dhamaanayo oo waxyaabuhu dadku ay ka dacwoonayaan ama ay ka sheeganayaan in lagu tifaftiro oo laga saaro qaladaadkaas haddii marka ay dhacdo 3 bilood oo hadda hadhay inaan laga gaarsiin kareen sida hadda muuqata waxaan ku tarin lahaa in dastuurkii 1960kii inkastoo laftigiisu u baahan yahay waxyaabo badan laga saxo haddana si ku meel gaara loo sii qaato haddii taa ay noqon weydo national charterka ama xeer qarameedka hadda la hayo oo baarlamaanka uu ku shaqeeyo in lagu dhafo ama magaratay la isku daro kan hadda qabi qoraalka ah wixii laga sheeganayo dadku ay ka sheeganayaan laga turxaan bixiyo sidaad ogsoontihiin dastuur marka la diyaariyo waa in golaha wasiiradu ay aqbalaan oo ay ka doodaan waa in loo gudbiyo baarlamaanka waa inuu ka doodo waa inuu baarlamaanka magaratay ogolaado markuu baarlamaanka ogolaado kadib in shacbiga la soo hordhigo oo referendum loo sameeyo hadda saad ogtihiin degdeg baa la wadaa in la yidhaaho golaha wasiirada in la soo mariyo looma baahna baarlamaan la soo mariyaa ma hayno waxaynu sameynaynaa constituent assembly wax la yidhaaho 825 iyaga ayaan leenahay gacmaha kor taaga waxa tiraan haa maya qabi qoraalku weligii qabi qoraal buu markaa iska noqonayaa wax ummadda anfacayana ma noqonayo sida awgeed degdegsiyaha hadda la wado cidna faa'iido ma aha waxaan ku talinayaa waxa weeye sidoo haddaba sheegay dhowr maalmood ka hor ra'iisul wasaaraha in qabiyo qoraalka kan uu ahaan doono qabiyo qoraal ilaa la helayo baarlamaan
ummaddu soo doorato ilaa shacbiga Soomaaliyeed uu sameynayo referendum u codeynayo inuu qaatay inuu saqaadan marba hadduu qabyo qoraal yahay lana aqbalay inuu qabyo qoraal iska ahaan doono in lagu sii murmo oo ay noqoto hadal ma garatay joogto ah ma qabo labada kooxood oo marka extreme ka ah oo qoran ay leedahay la'aantii lama ahaan karo qaran ma noqon karo waxaan lahaa waa ku qaldantihiin kuwa oranaya dastuur loo baahan yahay soo la xooro iyaguna waxaan filayaa inay qaldan yihiin waxaan ku tar lahaa waxa weeye in la saxo oo wixii qaldan laga saaro lana ogolaado inuu qabyo qoraal iska ahaado inta la helayo baarlamaan ummaddu ay soo doorato wadciga hadda lagu jirana mid ka duwan la gaarayo tan kale oo ah oday dhaqameedyada qaabka loo soo xushay muxuu ahayd go'aanada laga rabo inay gaaraan waxaan oranayaa waxa weeye sida badan intooda badan dadku waxay qarayaan oday dhaqameedyo saxa inay yihiin inaan la wada cambaareen baan anigu ku talin lahaa oo la oran kulligood dad xun baa la keenay dad wanaagsan oo badan baa la jooga oo la yaqaan inta ma garanaysaa la is oranayo ma aha kuwii saxa ahaa waxaan qabaa in la saxo taayada ah waxaan soo jeedin lahaa waxa weeye fargarinta dawladdu inay joojiso ay ku hayso oday dhaqameedyada waxaan kaloo ku talin lahaa waxa weeye in 25 oday dhaqameedyo oo macruuf oo la yaqaan oo wakiil ka ah 5 beelood oo Soomaaliya in loo magacaabo iyagu inay xaliyaan mushkiladda lagu sheegayo arrinta ma aragtay oday dhaqameedyada kuwa saxa ah iyo kuwan saxa ahayn iyagu inay kala saaraan iyaga ka badiya oo ka aqoon roon maamulka dawladda oo hadda faraha kula jira waxa kale loo baahan yahay waxa weeye guddiga isaga ah inuu noqdo guddi dhexdhexaad ah oo haddii dacwad ay ka yimaadaan qaabka loo soo xulo xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ee soo socda in ay iyagu noqdaan kuwa marjaca ah oo loo noqonayo oo xalin doona mashaakilka qabaa'ilka iyo qaabka wax loo soo xulay maaha suuragal in madaxda dawladda oo sidooda badan ayagu doonaya inay ka qayb qaataan intikhaabaadka soo socda ee madaxweynenimada inay iyagu noqdaan kuwa soo xulaya ama qayb ku yeelanaya awoodda xulidda xildhibaanada adduunyada meel ka dhacdaa ma jirto nin musharaxa isagu inuu soo xusho cidii dooran lahayd taana waxaan ku talin lahaa waxa weeye in faraha kala baxaan ummaddu inta maanta waa ka bisishahay ummadda dhaawac badan baa ku yaal dhiig badan baa ka daatay maaha arrin dambe oo ummaddu ay u dulqaadanayso koox yar oo iyaga mansabka mooday inay mudnaan u heleen ama mansabka u qaatay waxay xaq u leeyihiin ragga iyaga ah dhibaato badan bay geysteen iyagii kuwii ka horeeyay haddaan la soo istaajinayn maxkamadaha adduunka oo kuwa ma garanaysa criminalska ama dambiilayaasha dhibaatada soo geysteen hadday ka badbaadaan waxaan oran lahaa dhibaatada ummadda ay ku sii hayaan ha joojiyaan ummaddu maray noqotaba waa xisaab waa imaan doontaa in lala xisaabtamo qof kasta oo dhibaato maalin u geystay waxaan kusoo gabagabeynayaa waxa weeye waqtiga hadda oo aad iyo aad u gaaban inta laga gaarayo bisha 20 August waqtigaas aad u gaaban yahay riwaayadda ay noo jiraan madaxda
Soomaaliya oo isqabsiga ah inay joojiyaan mashaakil dhexdooda hadduu dhacana inay ku dadaalaan ayagoo dalkooda jooga inay xalliyaan haddiiba loo soo yeerin karo oo dibadda looga yeerin karo inay xalliyaan waxaa u roon oo u sharaf badan in mashaakilka ama khilaafka dhexdooda yaal in dalka gudihiisa ay ku xalliyaan waxaan ku soo ururinayaa hadalkayga waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waa inay u diyaar garowdo isbedel inuu dhaco isbedel waa laga maarmaan weeye isbedelkaas waa inuu noqon nin bedela inuusan noqon nin cusub oo dambe oo jeebkiisa isagoo markiisa ka buuxsada xoolaha ummadda waa inaysan dhicin regime dambe oo burburka ummadda Soomaaliyeed ka qayb qaata ama ku sii kordhiya dhiigga sida macna darrada u daadanaya waa inaysan dambe u dhicin waxay la tahay isbedel in la helo waa laga maarmaan hoggaan cusub in la helo waa laga maarmaan waa si inuu noqdo hoggaan aqoon khibrad ikhlaasnimo intaba leh u diyaara naf iyo maal iyo waqti iyo fikirba inay gashaan dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed sidii midnimada ummadda Soomaaliyeed dib loo soo celin lahaa sidii sharaftii ummadda Soomaaliyeed iyadana dib loogu soo celin lahaa hoggaan cusub oo leh aragti dheer hadaf midaysan u diyaara inay dhibaato waliba ka hortagaan iyagoo naftooda u horaaya danta caamka ah intaas ayaan maanta ku soo ururin lahaa waan ku mahadsantihiin wixii su'aalana diyaar baan ka jawaab